وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد marka koobaad waxaan doonayaa inaan dhaho adduunyada qoysaska jooga afar bay u qaybsadaan marka qof walba waxaan doonayaa bal afartaa horta inuu iska fiiriyo oo iska eega marka koobaad talow adigu qaybtee ayaa tahay marka qodobka koobaad waxaa la yiraahdaa waa usratun saciida wa ghayru naajih waa qoys ayagu isku faraxsan labadooda ceeshow milix bay isku yihiin laakiin ma lahan nidaam iyo khito xagga waxbarashada caruurtooda waa faashil hadday noqoto xagga dhaqaalahooda waa faashil hadday noqoto xagga dariskooda waa faashil yacni nolosha inteeda kale oo dhan laakiin labadoodu way isku fiican yihiin oo isjecel yihiin aye sida ayaa ah hadda dasa ama jira mid kalaan ku hayaa midda labaad waxaa weeyaan waa usratun naajixa waa qoys yacni dhinac walba maadada iyo adduunyada ku guulaysay laakiin ayagu iskuma faraxsano waa dhakhaatiir waa injineero waa mutacalimiin waa muthaqafiin caruurtoodu maa sha allah caafimaadku waa 99% laakiin ayaga labadooda harag unbaa laysu saaray meesha qurmuun ay ka ursanayaan labadooda unbaa budh iyo qaylo iyo buuq maanta oo isku haysta haye qoladaas qolo kale ama jiraan ilaahay nagama dhigo amiin dhaha qolo saddexaad baa jirto waa usratun ghayru naajih wa ghayru saciid laa ilaaha illa allah waa qolo ayagu aan meel ku roonayn kuwaas waan ka boodaynaa waayo in la sheegaaba anaga dhib nagu ah qodobkan idin kala hadlayo marka waxaa la yiraahdaa usratun naajiha wa saciida yacni qoys wanaagsan oo shukran qoys wanaagsan oo horta ayagu isku faraxsan noloshana ee ku guulaystay haddaba su'aashu waxay tahay qoyskan guulaystay muxuu ku guulaystay halkaa ka qabsada warka qoyskan guulaystay muxuu ku guulaystay qodobo dhowr oo aad u kooban yaan idinla wadaagi doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka koobaad oo shaashada aad ka aragtaan waxaa ka mid ah taxdiid ahdaaf wa adwaar alxayaa zawjiya marka horeba qof walba meesha uu guriga ka soo gelayuu yaqaanaa marka horeba guriga meeshuu ka gelayuu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa kanaalada guriga soo gala biyaha soo qaada biyahaas meeshay ka soo qaadanayaan ceelka meeshuu ka darsanhaya biyaha ayuu yaqaanaa galaaska uu biyaha ku cabayo meesha uu afka ka saarayuu yaqaanaa kullu daalika waxaan ka wadaa aabbuu wuxuu yaqaanaa waxa lagu leeyahay hooyaduna waxay taqaanaa waxa lagu leeyahay qof walba wadadiisa baabuurta haywayga marka ay qabsadaan waxaa loo dhaxaysiiyaa soomo xariiqin yar oo cad un soomo aha gaari walba lugta meesha waa inuu ku hayaa steerinka haddii xagga loo leexiyo haddee shil baa dhacaya saa daraaddeed hooyadu wadadeeday taqaanaa aabbuhuna wadadiisa ayuu yaqaanaa haddee ma ii sharxaya midda waa midda waana cudurka ugu weyne maanta markii la garan waayey wadada shaaga meesha haywayga loo saaro markii la garan waayey baa wax walba isku dhacay sida baabuurta iskugu dhacaan oo kale idan qodobka koobaad ee qoyska saciidka ahee naajixa ah ama qoyska nolosha ku guulaysay qof walba muxuu yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala waajibkii la saaray zawjka maxaa la yidhi liyunfiq waa shaqaynaya marka ma seexanaysid qaadna ma cunaysid fadhi ku dirra kuma mashquulsanayd liyunfiq amarkaa iyo ficilkaasaa kugu socda gabadhi maa maxay idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafida farjaha wa ataacat zawjaha halkaasay la yuururtaa halkaasay la fadhidaa oo leedahay jannadaadaba waxay ku jirtaa odaygan inaad u masaajayso soo saas maaha odaygan soo daalay ee maanta oo soo shaqaynayay ee tagsiga saaraa ama baska waday ama dhulka xaaqayay ama ayay doonaysaa inayba janno ku gashaba waxay la indhawaaweyn tahay waxayba rabtaa albaabkaas ay jannada ku geli lahayd baaba taqaanaa oo xaggee waaba odaygeedaba ninkuna wuxuu yaqaanaa liyunfiq soomaa reerkiisa siduu u ilaashan lahaa ama u nafaqaysan lahaa qodob walbana wuxuu leeyahay macno gooni aad u fara badan buu leeyahay laakiin waqtigan ilaalinayaa qodobkeenna kale qoyska guulaystay ee naajixa ah ee haddana isku faraxsani waxay yaqaanaan macnaha mas'uuliyadda
maxaa laga wadaa horta mas'uul baanahay mas'uulku waa mafcuul mafcuulkuna waa maa waqaa calayhi ficlu faacil yacni waa maxay in maalinta qiyaama wax la ii weydiin doono qaala tacaala waqifuuhum innahum mas'uuluun way istaajiya waa kuwo wax la weydiinay idan waxaa weeyaan gabadhii ama wiilkii ama labadii isqabtay qof walba wuxuu leeyahay haddaad qofkan kale xaqiisa aad maanta aad dardarto maalin aad qaawan tahay oo qiyaamo la dhaho ayaa lagu weydiin idan anigu waxaan ku jiraa dadaal iyo taxadar ku saabsani tolow arbaad naar gashaa tolow arbay lugtu kuu simbirraxataa tolow arbay biyuhu ku laqaan tolow arbay baddu ku cabtaa intaasaan ku jiraa oo waa maxay qofkan kale ayaaba ka cabsanaya xuquuqdiisa aakhare in la i weydiiyo waxaan xusuusnahay yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi maxaa ku xiga wa saaxibatii xaaskayga haddaa qiyaamo ka carara ka waran leanna xaqeedii yaan duudsiyey gabadhuna ninka sidoo kale waxaan xusuusnahay nabiga calayhi salatu wasallam hadalka uu yidhi kullukum raac qof walba waa xoolo raac waa mas-uul wa kullukum mas'uulu eesh can raciyati ereygaasee ku dheggan saas daraaddeed ayaa carruurtan dhallay baan gacmaha qabanayna oo xaaskiibaad mataqaanaa gacanta qabanaysa oo gabadhiibaa odaygeeda gacanta qabanaya markaasaa dee wax yar oo dhiba uu dhaco icafi bay leedahay icafi buu leeyahay waa laba qof oo mas-uuliyadda garanaya waxaan doonayaa muxaadaradan markay maanta noo dhammaato inay guryaheenna wax badan ka beddesho inay guryaheenna wax badan ka beddesho hadda meeqa qodob baan maraynaa laba qodob qodob koowaad muxuu ahaa haye telefoon baad wataa ma ku qoratid haye qalin ma soo qoratid oo qoratid haye sheekh xambali baa qoranaya allahu akbar sheekh xambali baa qoranaya aad baa umahadsan sheekh xambali baaraka allahu fiik qodobka saddexaad altacliimu waatawaazun baa la yidhaahdaa kaalinta caqliga iyo quudinta nafta iyo ruuxdan jirkeennu labuu ka kooban yahay qayb ruux baa la yidhaahdaa cuntay u baahan tahay waa cuntadee waa dikrullah midna waa jirkana muxuu u baahan yahay cuntadee beriis sidaa daraaddeed qoyska guulaystay haa soo maaha yaa mikrofoonkaa jazaaka allah khayr baaraka allah codkaygaa iska dheer iska daayaa baaraka allah mahadsan tahay sheekh jazaaka allah khayr qoyska guulaystay waa qoyska ahlu cibaadada ah wey waa qoyska qur-aanka isla akhrista dhegaysta waa qoyska qur'aanka isla akhrista waa qoyska salaatuleylka isla tukada ya allah say ku dhici kartaa inaan dhahno sacaado iyo farxad iyo raynrayn iyo liibaan baan dareemaynaa adigoo alle ka fog suurtagal ma aha meel ku xariiqa caawa gurigaaga cibaadadiisa wax ka bedel gurigaaga cibaadadiisa wax ka bedel oo salaatuleyl adiga xaaskaaga xaggee istaagaysaa xaaskaaga gadaashaada istaagaysaa leemaada adigaa hoggaanka ah markaasay garanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah se gadaal bay fadhidaa maxaad u fadhiisatay gadaal maxaad ii soo garab istaagi weyday maxaad ii tukin weyday adugu maya ilaahayba ma amrin oo raggaa mas-uul laga dhigay miyahaa haddaba salaada markii laga baxoy berri aan gaadhno saad hadda iiga dambaysay iiga dambee warku waa dhan yahay saad hadda iiga dambaysay adiguna iiga dambee waa la fahan soo maaha sidaasaa hoggaanka loogu talagalay laakiin guri muusig iyo shaytaan iyo jinni iyo salaad la'aan iyo taariku salaad iyo xan iyo qashin iyo fadhi ku dir aan qiimo lahayn gurigu ka jiro qiimo badan ma saa daraaddeed waxaan u baahannahay ruuxda iyo jirka inaan isu miisaanno gurigana waa inay tacliin ka jirto waan ku celinaya ereygaa yaa doonaya inuu noqdo qoys nolosha ku guulaystay waa cibaado iyo aqris iyo tacliim adiga xaaskaaga wax isla barta adiga xaaskaaga isla dhegaysta cajaladaha isla dhegaysta qur'aanka isla dhegaysta tafsiirka culamo badan sheekh faaruq raxmatullaahi calayh sheekh maxamed cabdi umar sheekh maxamed cumar dir iyo culummada sheekh maxamed sheekh aadan sheekh yuusuf waa badan yihiin culummada tafaasiirtooda gal adiga xaaskaaga isla dhegaysta darsi samaysta axaadiida samaysta hadda hal mar yaa inteennan asaga iyo xaaskiisu darsi isla qaataan bal gacanta taaga bal aragnay kow jazaahu allah khayran labo saddex aga intaa basa afar shan gabdhaha 6 7 8 wakuka waad wanaagsantihiin waxaan hubaa dadka sidaa wax isula dhegaysta
inay ka faa'iido badan yihiin kow guriga baraka ku soo degaysa labo wixii la dhageystay hadhowta waa isla dhageysanayo waa la isla dhaqan gelin war Soomaaliya maqlaynin wala faham Soomaha qodobkaana wallahi qodob walba waan jeclaan inaan waqti idin siiyo laakiin waxaan oga jeeday USB gaasi qofkii USB kaasa waa siinaya si reerka ma taqaana adiga reerkaaga si fiican u fahamtaan qodobka saddexaad waxaa la yiraahdaa ama afraad way shaambari waxa weeyaan saddexa afraad at-taaruf reerkaaga iyo adiga isbarta wallahi dadka in badan baan ku niri walaalay laba maskax baad kala leedihiin laba si isku garanaysaan labadiina labadiina si isku garanaysaan sayna fahamtaan ma labadiina wayna subar ikada dan xijaab si qad kor inta geeli warka Soomaa okay inta saa okay Soomaa xijaabkaas dhibay تعارف اللي يراهدا التعارف تعارف maxaa ku diiday adiga iyo xaaskaaga in asbarataan ma bistaqaanaane shalawaad jacalaad Soomaha waad guur Soomaha laakiin dabeecadeeda ma taqaanid waxaan leeyahay meeqa sano sabta adiga xaaskaaga 30 sano waad u baahan tahay caawa marka muxaadaradan dhageysato inaad qalin iyo buug inta soo qaadato aad dhahdo aan isbaranno maxaa ku dhiba maxaan ka ilaaliyaa meeqa kala dacwoonaysa saasuu yiri waagan jabada deganeen hadalkaas igu yiri 20 sano ka hor ayuu hadalka yiri lagama heshiyo lagama tago lagama gudbo laakiin la isma baranin saadaradeed waxaan u baahanahay isbarasho dhaba war ninka maxaa dhiba ka ilaali gabadha maxay dhibsataa hadee ka ilaali oo maxuu ninku jecel yahay si oo gabadha maxay jeceshahay hadee si bas waa dhamaatay hal la isbarto waa qodob aadi reereena waxa ugu badan ee dumiye waa isbarasho la'aanta aniga haddaan cadhoodo waan baxaa banaankan aadaa casarkii maghribkii baan imaadaa cishii anoo faraxsan laakiin ima taqaanid ridadii istaagtay ifur baa tiri wallahi inaad dhaqaaqaynin laakiin haddaan cadhoodo anigu waan baxaa anigoo faraxsan baan soo noqdaa albaabkadii istaagaysaa albaabkii isbarashaan u baahannahay maanta dhan wuxuu ku leeyahay markaad ragga sheegaystaan sheekhu wallahi aniga subxaanallah islaanteedu cuntada ma karin taqaan oo ma u sheegtid haddayna ka cuntada karin aqoonin waxaad dhahdaa anigu cuntadaasaan ka helaa dheh ragga qaar baa markay soo galaan ayagoo xanaaqsan bay soo galaan cumuuman ragga qaar ka mida waa inaad u sheegto dhahdaa anu sidaydaba waa iska xanaaqaa markaan soo galo adigu qosol wala faham Soomaa markaan soo galo adigu maxay qosol daawan u baahna sheekhu caafimaad ka sheekeynay marka waxa weeye adigu qosol taasna waan u baahanahay qodobka tacaarufka u baahanahay tawaasul baa jira walaalayaal waxaan u baahanahay xiriir baan u baahanahay xiriirku waa qaybo xiriirka jirka xiriirka wada hadalka xiriirka qaraabada iyo qoyska xiriirka hadalka macaan xiriirku sidiisaba waa xariga isku xidhan lamaanaha xiriirku waa shay cajiiba labada qof markay toos labadood u xiriiraan haddii kale gabadhuna xiriir bay yeelanaysaa kale wiilkuna xiriir kale u yeelanaya soo maaha waa khatar wey adigu xaaskaaga marka la xiriir adiga oo jooga shaqada waxaad intaad soo wacdo waxaad ku dhahdaa magacyada ugu fiican ugu yeedh markoobaad xaaskaaga magaceed cawrala soo maaha cawrala hooyada ba ola baxday soo maaha laakiin adigu magac adigu oo la baxaaskaaga adiga iyo ayada isla taqaanaan hadda waa magac markii ay maqasho wadnaha loo dhaafayo wey anu magacaan waa magaca wey magac markay maqasho gabadha wadnaha loo dhaafayo samayso ma samaysatay shaqada markaa joogto soo waxaad dhahdaa maanta shaqada inaan ka soo tagaan rabaa kadib markay ku dhahdo miyaad xanuunsan tahay maxaa kugu dhacay may adaan kuu xiisay dheh waa dhammaatay kelimadaasi 6 bilood bay shaqaynaysaa guriga kugu shaqaynaysaa hadda waa 6 bilood ogow hadduu guriga daqsi ku dhex jiray oyna arkaynin markaasay caarcaarada iyo daqsiga guriga ku jira intay aragto iyay maxkamadda intay la tiigsatay 6 bilood oo xariga u jaraysaa adigana waxaa lagugu soo dhawaynayaa qofkii qof aan ahayn hal kelimaa gabadha bedelaysa goortay gabadhu ku dhahdo xabiibi maanta goormaa shaqada ka soo baxaysaa oo uu ku yidhaahdo ma dhib baa jira ay dhahdo maya ma sugi karo maanta intaa shaqada ka soo baxayso hilow iyo jacayl aan kuu qabo hadiyad buu soo gadayaa intuu soo wuxuu leeyahay caawa cashada ha karinin anaa casho fiican oo macaan noo soo gadaye war waxa weeye reeraheena intaan u baahannahay
xiriirkaasaan u baahannahay xiriirka gogasha soomaaha qodobka ugu dambeeyaad ka arki doontaan oo magac cajiiba aan u bixino waad arki doontaan ha dhowto waayo qaylo badan baa ka jirta gogasha qodobkana waxaa la yidhaha tafaahum labada qof sidoodaba inay wada hadlaan oo wada xiwaartamaan oo isfahmaan Soomaalidu waxay dhahan xoolana urta isku gartaan haye dadku maxay isku gartaan dadku inay wada hadlaan sidoodaba tafaahum baa loo baahan yahay anigii adiga waa inaanu marka isbaranay kadib waa inaan isku fahamno nolosha iyo qaabkay u soconayso qodobkana at-tawaafuq baa la yiraahdaa tawaafuq waa maxay fulinta wixii aan isku waafaqnay shaygan anigii adiga isbarasho iyo isfaham iyo tawaafuq wixii aan isku waafaqnay waa inay noo qoran yihiin nolosheennu waa inay noocaan noqoto waa qodob muhiima tacaawun baa jira marka hadda wali waxaan ka sheekeynayaa mar kasta idinku soo celinayaa ha iloobina reerka najaxay wuxuu ku taagan yahay idiin sheegaya waxaa weeyaan at-tacaawun tacaawunku waa wax wada qabsasho wey labadiinna wax idinka dhexeeyaan inaad labadiinna aad noqotaan maxaa la yidhahdaa wax walba carruurta xaggeeda hadday tahay haddii ay tahay guriga hadday tahay shaqada hadday tahay dhaqaaluhu wuxuu u baahan yahay in la keeno guriga markuu imaadana muxuu u baahan yahay dhaqaalihii in la ilaaliyo soo maaha oo dhaqaalihii in la maareeyo oo la tashiilo ayaa gabadhii looga baahan yahay odaygina inuu dhaqaalihii keenaa loo baahan yahay tacaawun baa la yidhaahdaa gabadhii baa xanuunsatay odaygii baa xanuunsaday ninkii baa xanuunsaday tacaawun xagga caafimaadka tacaawun xagga wax walbaba labada qof waa inay ayagu isgarab istaagaan waa inay isgarab istaagaan labada qof qodobkaa waan celcelinaynaa weliba ragga aad baa looga calacalaa wadogtiin soo maaha ragga mawduucaasi aad bay gabdhuhu ooga sheegtaan marka aanu gabdhaheenna caawinno kolba shaxambeli baa ag fadhiyo oo asal ahaanna reer baadiye ah oo baadiye ka yimid hadhu wuxuu ku dhihi marka aan u dhaho tacaawun bay gabadhu u baahan tahay jikada intii lala galo markay basasha jarjarayso adiguna inaad mataqaanaa baastada ku rido wuxuu dhihi sheekh jooji waxa waa qorqodonnimo jooji waxaad dumarkaa nagu barinay waxaasi waa qorqodonnimo halkani qorqodo kama aha hadday meel qorqodo ka hay soo ma aha halkan waxaan u baahannahay maxay inaan gacanta isqabsanno waxaa idiin sheegayaa ninka xaaskiisa caawiya way ka jeclaanaysaa oo way soo dhowaynaysaa oo way ixtiraamaysaa way qadarinaysaa waayo waa nin garab istaagan mar walbaba qodob kale waxaa la yidhaha wallahi qodobka waa muhiim sheekh amri tashaawur labada qof waa in ay wada tashadaan labada qof waxbay isku darsadeene waxay isku darsadeen waa inay ka wada tashadaan caqligii bay isku darsadeen oo xoolihii bay isku darsadeen xataa dhacaankii bay isku darsadeen oo aniga keligay waxba dhali waayey adiguna keligaa waxba dhali weyday markaan wax isku darsanay un baan wax dhallay saa daraaddeed waa inaan wixii dhexdeedna yaalla hadday dhaqaalo noqdaan iyo hadday maskax noqoto iyo hadday mustaqbal noqoto iyo hadday wax walba noqoto waa inaan xataa ilaahay wuxuu tilmaamay ilmaha naaska laga goynaya waa inay ka wada tashadaan waalwaalidaatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا لا تضار والدة وعلى الوالد فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور هذه الماء الناس اللي قويو أي نقطه وإن اللبض برال لنا إسكيهين ولما يكون تشادين وإلماء caanihii laga goynayo buu Alle subhanahu wa ta'ala tashaawur baan u baahanahay labada qof inay si dhaba mustaqbalkooda wax looga wada tashadaan an ixtiraam wa rifq waxaan u baahanahay wax qodobka waa naga maqan yahay culimo Allah guri ma jiro wanaagsan oo istaagay ilaa waxa guriga istaajiyay intaan soo sheegnay kadib waxa istaajiyay al ixtiraam al mutabadal yani ixtiraam labada qof kan xaqiisa ka imaanaya كان حقيسة كيمانيا مركز عقلي iyo shakhsiyadi laakiin guri la iscaynayo oo la isqadarinayo oo odaygi ma taqaan lagu canuuftufayo ama gabadhi la xaqirayo leeyahay maxaa tahay naag baa tahay guriga ma ixtiraam baa yaala la gurigaas ixtiraam ma yaalo ixtiraamku labada qof inay isweyneeyaan oo isqadariyaan oo isqiimeeyaan ayadana iyo rifqiga maxaa yeelay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma karaameeyo dumarka illa kariim ma ahane nin wanaagsan ma ahane ma ihaanaysto illa nin la'iima ma ahane المودة والرحمة قريهنا وحيكو تاغيهين المودة والرحمة آيات كل لباتنا سورة الروم وجعل بينكم مودة والرحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
wajacala baynakum mawaddatan waraxma. yacni gurigu wuxuu u baahan yahay raxmad, gurigu wuxuu u baahan yahay mawadda. guryaheenna haddii raxmadda laga waayo oo naxariista laga waayo oo jacaylka laga waayo guryaheennu ma istaagayaan. qodobkaana inaannu ku baraarugno waa qodob muhiima. alxiwaar, wadahadal iyo isqancin. labada qof waa laba qof oo bini aadame, waxbaa dhex mari karo oo waxbaa ka dhaxeeye. maxay samaynayaan? way wada hadlayaan, way wada fadhiisanayaan, miiska ayay wada fadhiisanayaan. laakiin marka la xiwaartamaya xaggee lagu wada xiwaartamaya? ma qolka jiifka? maya qolka jiifka shaqooyin kale u taala, gadaal baan ka sheegi doonaa. qolka jiifka shaqooyin kaleoo khaas ah oo aad muhiim u ah ayaa u yaalla. goormay wada xiwaartamayaan? ayagoo cadhaysan? maya. ayagoo cadhaysan goormay wada hadlayaan? ayagoo daalan? maya. goormay wada hadlayaan? ayagoo gaajaysan? maya. goormay wada hadlayaan? ayagoo lala joogo yaanyuur guriga haddii joogto bisad, markay wada hadlayaan waa in bisadda laga saaraa. labadooda keli abaa wada hadlaya. idhegayso, waan ku dhegaysan. takallam, fakir, istamic, imaqal, waan ku dhegaysan. taa weeye midda meesha ka jirta. qodobka kale waxaa weye, qodobka waa muhiim jiddan. alqudratu calaa muwaajahati duquuط alxayaat. waxaa weeyaan in aragti iyo adkaysiba loo yeesho. noloshu way isbabedeshaa. nolosha faqri baa imaada, nolosha xanuun baa yimaada, nolosha khilaaf baa yimaada, nolosha dawladda xaggeeda wax kaaga imaan, oo jawiga xaggiisa wax kaaga imaan, oo deriska xaggiisa wax kaaga imaan, oo tacliinta xaggeeda wax kaaga imaan, oo caafimaadka xaggiisa ayay labadii qof mid kamida wax ooga imaan. amniga iyo nabadgelyada ayaa xaggooda wax ooga imaan. nolosha isbedbedelaysa waa inay labadii qof ay si dhaba isula falgalaan. التأني وعدم العجلة. deganaan, qodobka waa muhiima, dhagaha ii fura. ta'ani, deganaan labada qof u fiirsada. dadka shaytaan baa dhagaha in badanoo kamida kaga adima. sidaa daraaddeed ayaa khilaaf yar markuu dhaco waxay leedahay ifur. asagana wuxuu leeyahay waan ku furay. markaase waxay leedahay ii dhammaystir. soo ma dhacdo? wadaadada la weydiinaya warkaas soo maaha? oo in badan lala soo xidhiidhaa ii dhammaystir. markaasuu ha dhowto markii xaraaradii cadhadii degto yaa waxay ku leedahay ama ku leeyahay sheekhow waana cadhaysna. oo ma nin xaaskiisa buskud afka u gelinayaa fura? nin walbo markuu wax furayo isagoo cadhaysan unbuu furaa. qiil ii raadi. islaantayda markaan furayo daahir ma ahayn. qiil ii raadi. markaasaa qiil la raadiyaa. wixii loo heli karaa marka loo raadiyaa. wixii loo waayana waxaa la dhahaa sabr iyo iimaan. allah idin kala siiyo. soo saas maaha? التأني وعدم العجلة. ولذلك يا الإخوة كليب يربان idin diraya on in badan aan ku soo celceliyo oo waxaan dhahaa raggaan la hadlayaa aniga iyo shaxanbeli aanu ku jirno. waxaan dhahnaa xaaskaagu ifur hadday ku dhahdo macnaheedu waa ifahan. macnaheedu waa maxay? waxbaan tabanayaaye ifahan kuma necbi. inay saas tahayna waxaad ku garanaysaan gabadh kasta marka la furo gadaal bay farta ka qanintaa ilaa dee mid uun rafaadsanid mooyeeno kolka horeba xabsi ku jirtay mooyeen. soo ma? marka ifur hadday gabadhu ku dhahdo adiga awoodda lehe bacdallaahi ha furin gabadhe, waxay ka wadaa ifahan. soo maha? waxbaa iga maqana ila fadhiiso. wa cadamu lcajala, marka yaan lagu degdegin biidn illaahi tabaaraka wa tacaala. qodobka kale التنازل والتغافل. qodobka waxaan doonayaa inaan dhaho reeraheenna waxaa dhaawac u geystaa waxa loo yaqaano inaan laysu cudur daarin ama aan indhaha laga laabanin waxyaabaha imaanaya. 3 tusaalaad idin siinayaaye bal aad u dhegaysa. hooyo koob caanaa ii keen, waa midda koobaad. 2 xabiibi caano iyo rooti noo soo qabo. 3 qaali qado maanta ma taala miyaa? qado maanta ma taala miyaa? 3daa qodob baan rabaa inaan sharax yar idinka siiyo. qodobkooda waa maxay? hooyo koob caano ah ii keen. 13 jir 14 jir bay hooyo u dirsatay ama 7 jir roog cagaaran oo qurux badan oo yaalla ayay u dirsatay. lugta intay wax u galeen ayay caanihii daateen. hooyadu marka waxay eegaysaa dembiga iyo roogi guduudnaa ayay eegaysaa. qaylo ayay afka furanaysaa. bal waxaan ma indhaha laadahay? aabbahaabaa marka horeba wax daadin jiray. halkaasaa sheekada laga bilaabayaa. waa la garsoomaha. cunugii sas baa ku dhacaya, dhib baa cunugii ku dhacaya. laakiin waxaan rabaa caanaha daatay inaan caqiide ka dhigo, caanaha daatayna inaan tarbiye ka dhigo,
caanaha daatay anigii ilmahayga inaan jacayl iyo mawaddo ka dhigo halkaaga istaag koobkii baa jabay koobkii maa jabay adigu wax ma ku gaadheen maya wax kastoo dhacaadaa iga qiimo badan alxamdulilah ilaahay wiilkayga inuu ii badbaadiyey labo koobka dhacay ee jabay malakul mawd baa gacmahaaga kala baxay sidaa daraaddeed anigiyo adiga laftayadu markuu wakhtigeennu dhammaado sida koobka u jabay ayaannu u dhimanaynaa ogow tawxiid iyo caqiidan ilmihii u sharxayaa amaa rooga wasakhoobay dad baanba biyo haysanin saa daraaddeed annaga biyo aan ku dhaqdan haysannaa amaa caanaha daatay carruur adiga kula eg iyo hooyooyin aniga ila eg ayaan xataa cuntoba haysanin ilmihii caqiida looga dhigayaa ma tahay mise maaha reerkii marka mawaddo ilmihii waan isku soo dhowaanaynaa qodobka labaad wuxuu ahaa hooyadii xaaskii oo dhahaysa xabiibi caani iyo rooti noo soo qabo odaygii taxi buu wadaa raallaha tagsiilayaasha odaygii taxi buu wadaa tagsiiluhu maanta waa iska daalan yahay dabcan waxuusan raalli ka imu marka qaarkood qaadaa mar alla markii uu soo daala bay dhahdaa casarkii xusuuso berri carruurta iskuulka caanahoodii rootigoodii siduu usii waday asagoo fadhamaran buu imaadaa kadibna mar alla markay arto asagoo gacmaha laalaadinaya ayay dhahdaa oo caaniya rooti ma wadid miyaa alla markaasuu naxaayoo dhahaa alla waan iloobay sida muu dhahay annaga horta yaad wax u qabataa horta majin baad u shaqaysaa annaga nooma shaqaysid dad kale aad u xoog badan tahay hadda carruurtan berri maxaan ku diraynaa waa yahay maxaad noogu sheegi weyday annagaa doonan lahayn halkaasaa carruur seexanaysa iyo oday daalan iyo islaanta dusha ka fuulaysaa markaasaa sas la qaadayaa laakiin waxaan doonayaa inay dhahdo caano ma wadid miyaa dhibaato male ilaah baa noo qorin hadda rooti waxaa guriga noo yaalla bur haddaan qasaya rooti macaan ayaan adigana casho kaaga dhigayaa carruurtana biyo siinayaa musqushi waa ku diyaar kabihiina xagga musqushay u sii jeedaan shukumaankiina waa yaalaay orodoo iisoo qabaysa waroo la fahan soo maaha qodobkaa way qodobka aanu doonayno qodobkaa ugu dambeeya odaygii oo maanta o dhan saaxiibkiiba warkaale maanta aan qadayne waa arkayn waqtiga dhammaaday insha allah kaale aan qadayne markaasuu wuxuu dhaha maya aniga waa la miisaamayaa aniga xaas cajiibaan qabaa maanta qadada guriga iga bisishahay si u soo socday islaantii oo fadhidoo telefoon ku hadlaysa u dhahday haddee guri maanta wax laga kariye waa la garanayo guri wamaa angegnaa qallafnaa safsafnaa mar alla markuu soo galo arkay gurigu maanta inuu abaar yahay ayuu yidhi oo maanta qada maydan karsani miyaa alla maya ee maanta gabadhii heblaayaheeda deriskeenna ahayd buu ilme aabbaheed dhintay soomaaliya ku dhintayoo tacsibaan aadayoo kada markaasuu wuxuu yidhaahdaa marka gurigan horta waaba guri gaajo loogu dhintay halkaas ka bilaabaya gurigan sidiisaba gaajaa noogu dhimannay bal hebel markuu lahaa aan soo qadayno maxaan u yeeli waayey waa la faham soo maha halkaasuu buuqiyo qaylo ka bilaabi laakiin markuu dhaho ma saas ahaa reerka deriskaan allah u naxariis wixii ka dhintay shalay ma garan qadadii kalluunka iyo adduunkaad i siisay yaan weli daacayaa waanba dharagsanahay weli waa la faham soo maha haddana adu maadaama geeri ku taalood naxsan tahay waxaa weeye anigaa qada noogu tuuraye orodoo reerkii soo caawi war ma la faham warkaa adaa kulli xaal taas intaas looga tegayaa tasaamuxa labada qof inay habeen walba oo jumco ah bisha waa idiin sheegaya qur-aan maa waxa idiin sheegayo laakiin waa tajrubo bil walba jumcada ugu dambaysa carruurta markay seexdaan fadhiista labadiinna kadibna bisha xisaab xidh sameeya maxaana dhex maray maxaa necbaa kadibna warqado intaa soo qaado warqad walba nin walba madaxaaga warqad dhig gabadhana dhinaceeda madaxeeda agteeda warqada komadiinka qalin saar kadibna subax walba markaad kacayso waxaad berri cuni lahaydna ku qor mulaaxadada aad yar qabtana xalay hadday gogosha kugu xumayd xataa xalay si fiican ooma seexanin dhe mushaar la'aanba xalay igu dhacday qor waa la faham soo maaha kadibna gabadhu way akhrisanaysaa ninkuna saasuu akhrisanaya waa la faham soo maaha kadibna jumcadii baa laysu keenaya jumcadii baa mataqaana laga xisaabtamaya qodobka iigu dambeeya marka qodobka iigu dambeeya bal akhriya hal mar waxaa la yidhahdaa qiimaynta qolka nabadda qiimaynta qolka eesh qolka magacii caawa intaa reer burlaanka ku seexda qolkaas jiifka waxaa la yidhahdaa qolka nabadda ma aha qolka colaadda iyo xuruubta iyo dagaalada ma aha qolkaas marka waxaan u baahnaya isaga ma tafsiirinayo halkaan ooma dhaafayo maadaama uu qolka nabadda yahay waa in qolkaa xaqiisa la siiyo oo la qiimeeyo qolka oo la qadariya qolka oo lagu murmin qolka oo uusan maxkamad noqonin qolka arrimo badan iyo shaqooyin badan baa u yaalla
oo kaba badanba haddii la guto wabillahi tawfiiq